qaraxani ayaa waxa uu ahaa miinada dhulka lagu aasay isla markaana lagu haga rimuudka waxaana lala eegtay wafdi kormeer ku tagay degmada Daynile ee gobolka Banaadir halkaas ay ka socdeen howlo nadaafadeed waxaana wafdigani kamid ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada Cali Axmed Guure gudoomiyaasha degmooyinka Daynile iyo Wardhiigley waxaana qaraxani ku dhintay 2 askari halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoona sidoo kale uu burburay gaarigii qaraxa lala eegtay xilliga qaraxani uu dhacay ayaa wafdigani waxaa la socday qaar kamid ah warbaahinta ka shaqeysa gudaha magaalada Muqdisho iyagoona xilligaas u kuurgalayay howlaha nadaafadeed ee ka jira ama laga waday degmada Daynile ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ciidamadii la socday wafdigani ayaa durbadiiba howlgal ay ka sameeyeen nawaaxiga qaraxa uu ka dhacay ayaa waxay ku soo qabqabteen dhalinyaro kuwaas oo ay sheegeen inay kaga shakisan yihiin qaraxani lala eegtay amaanta wafdigani joogay degmada Daynile ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho Cali Axmed Guure gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha siyaasadda iyo bulshada ayaa sheegay in qaraxani lala eeganayay gaariga uu watay hasaahati uu ka badbaaday meel ay markaa istaagnayd ay nala beegsadeen humuud inay baabuurkii anigu aan watay marka inay la beegsadeen marka alxamdulillah wax dhibaato say doonayeen xuma dhicin waxay doonayeen inay baabiyaan waftiga faraha badan ee socday ee mas'uuliyiinta iyo ciidanka iyo saxaafadda iyo isku wada daran iyo shacabkii markaa noo yimid oo markaa aan doonayna inaan wax u sheegno waxay doonayeen dadkaas hor ay baabi maalin ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale qarax lala beegsaday qaar kamid ah ciidamada midowga Afrika xilli ay ku sugnaayeen degmada Kaxshiiqaal ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho Cabdirasaaq Miro Dhoore Hon Cable TV Muqdisho